يعني أيضا قدوميها قبل كمدق كان دقمدا مسؤوليين تكلايا بنتلان ددوينها غير حرفو عقال جنعساتو دليارو هوان انتي نبوة سلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مركا ووه الرأي أمهاد علينا يا انتي سوقا وانقابسي كلان كان يسو دوين تشرفت له يعني ما انت حرفك جوغني دمان انت كقيب قاعدت وفلا ينين وكلا هرين تدوينها غير حرفه وحان ومهاد علينا يا سو دوين تديرنايد martiqaadkii quruxda badnaa iyo kulankan aadka looga soo shaqeeyay oo jawiga wanaagsan oo fahmadu ay leedahay meel macaan lagu qabtay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta xaruntan oo runtii haddaysan jiri lahayn ay maanta goob noocan oo kale ay adkaan lahayd sidaan inaan kulanno waxaan ilaahay uga baryayaa xawaadan iyo odageeda shuuke oo runtii wax weyn qiimo badan ugu fadhiya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Puntland oo wax fara badan ka soo shaqeeyay dhinaca tacliinta iyo horumarka bulshada oo aan filayo labaduba in ay xanuunsan yihiin inuu Ilaahay caafiyo waxaan rajaynayaa wixii ay ka tagtay inay sidoo sii ahaadaan oo dadka hadda gacanta ku haya inay xanuunsan tahay aan la tabin ee noqdaan dad iyagana kaalinta buuxiyo waxaan rajaynayaa insha Allah xaawo maalmo dhaweyd iyadoo xanuunsanaya wixii ka qayb qaadaysa shirka horumarinta haweenka Puntland oo garow lagu qabanayo marka waan rajaynayaa doorkeeda iyadoo caafimaad qabtana way shaqeyn jirtay iyadoo xanuunsanna weli way shaqeynaysaa dadka noocaas waa dad ku yar bulshadeena waan rajaynaynaa gabdhaha halka wax lagu baray kuwa badan noocaas inay nooga soo bixi doonaan haweenku mar walba waa ay ka firfircoon yihiin ragga wixii loo dhiibana waa laga arkaa quruxda xaruntan ayaa muujinaysa dhirta ku taalla iyo sida ay u nidaamsan tahay waa hubaa haddii ahaan lahayd meel rag ku xaraysan yihiin inay si kale u ekaan lahayd marka aad baad u mahadsantihiin intaa markaan ka gudbo runtii xarfo أنا قيمة قارة إلا هاي سو دوينتي مركان مشرحان رنتي ولي ميلهان الله والله كم التهاي ميلها مروا الباء سيدا قار كأه أن رنتي وأركو إن يكون هبون تهاي إن لهرو مريو محايا لو مقالو داد كادو دادك كلا وحبدا نقدمون يهي واداد يقول الشيطي فوح قبصده واداد رباه inay kaalintooda ka soo baxaan isku tashadaan arintaas runtii waxay u baahan in lagu bogaadiyo in lagu dhiirigeliyo in lagu garab istaago xukuumad ahaan waxaan insha Allah ballan qaadeynaa inaad mashaariicaha horumarinta wadaan qayb weyn ka qaadano degmada xarfo waxay ka mid tahay meeshii ugu horeysay muddadii aan hadda xilka la wareegnay waxqabadkii ugu horeeyay Puntland aan ka qabanay oo ah xerada hadda halka ku taala abqaale xeradaas ujeedadeedu awal ciidan waa lagu tababari jiray ciidan in lagu tababaro kaliya waxa aan runtii maalinta loo baahdo ayaa halka dhirtaas intii wax lagu tababaraa laga tagi jiray waxaan ku talagelaynaa inay noqoto xero mar walba la joogo deegaan leh ciidamo amnigana suga dakhliga soo galana runtii degmadu ay ka faa'iideysato meel nabadgelyadeedana sugitaanka hadda ay leedahay kasii fiicnaata inay noqotaan rajaynayna waxaa soo raaci doona xeradaas meelaha ciidamadu degaan oo amnigooda fiicnaadaan horumarkaa daba socda marka insha Allah waxaan rajaynayaa suurada xafro ay hadda leedahay suuro ka wanaagsan inay yeelan doonto baaxadda ay ku fadhido waa meeshii Puntland marka laga sii baxayo gobolka mudug baa u koonaye waa halkii mudug laga soo galay waana ogtihiinoo deegaanka mudug waa deegaan colaadeed halka mar walba
dhufayska waa magaalada marka meesha ay mar walba rabto inay ku badbaado haddii marka aan laga helin facility haddii ilaahay waxba keenay ay dhacaan caafimaadkii iyo agabkii kaleeto ee dadku u baahnaayeen waad ogtihiin xilliyadii adadkaa dhibaatada laga soo maray waan rajaynaynaa insha allah inay wixii na soo maray ay nagu soo noqon hadday dhacana aan dad u toogaya ahaano waxaan runtii hadallada inkastoo qoraalka aan akhrin doono sida baahiyaha Puntland waa isku mid deegaanadooda waa isku mid waxaaba dheertihiin dad isku tashadaati kuwa aan isku tashano baahiyihiin oo kala qabana way jiraan dhinaca biyaha dhibaato xoog leh ka jirta dalkeena waad ogtihiin oo waagu biyaha sidaan looma tabi jirinoo haddee xilli roobaadku inta badan waa la heli jiray raxmadda ilaahay gacmaheenaan ku kasabnay inaan dhirtii jarno iyo isbeddelka cimilada dhacaya abaarihii waagi hore la filan jiray 10 sano ama 20 sano mar hadda sanad walba labada xilli baa maqan abaartu way soo tartaraysaa laba arrimood way keentay dadkeena oo noloshooda iyo dhaqaalaheena migi ku tiirsanaana migii abaar buu noqdo dadkii way ku noolaan waayeen hadday magaalooyinkii soo galeenna waxay noqdeen barakacyaal aan cid u maqan jirin dad xoogsan jiray oo xoolahooda dhaqan jiray oo cidna ilaahay mooyee aan u baahnaan jirin ayaa mucsar noqday oo u jeeta gacan shisheeye arrintaas runtii waa arrin aan u baahannahay inaan guud ahaan iska kaashano xukuumaddan muddadii yareed ay jirtay waxyaabaha ugu weyn aan ka shaqaynayna waxaa ka mid ahaa sidii ay u noqon lahayd xukuumad bulshada u dhow xukuumad baahiyaha jira taqaan xukuumad baahiyaha jira ficil uga jawaabta runtii golaha wasiiradu waxay samaysteen shirar waxay samaysteen qorshayaal waxaan samaynay qorshayaashaas hab ay ku fuli doonaan haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa wasiiradu inaysan noqon wasiiro degaan iyo reereed waxaan rajaynaynaa sida loo qorsheeyey oo loo qoondeeyey degaan walba baahiyihiisa siday u kala mudan yihiin iyo awoodaheenna inay isku dheelitirnaadaan waad ogtihiin miisaaniyadda dowladda Puntland waa ay kooban tahay waxa ay ku tiirsan tahay mashaariic deeq-bixiyaal noo keenaan waxaan qirayaa mashaariicdaas dad aan xilkas ahayn mararka qaarkood si aan munaasab ahayn inuu maamuleen waxaa jira deegaano mashaariic la iska dabageeyey aysan u wada baahnayn iyo deegaano u baahan oo aan la geyn waxaa dhacday mashaariic deegaano laga dhisay aan laga manaafacadsan oo meeshii ay ku habboonaydna aan laga dhisin arrimahaas insha allah waa dabageli doonaa deegaan walba baahidiisa iyo sida u kala muhiimsan tahay inaan wax ku qabanaan aad u rajaweynahay dadkuna waa soo bislaanaya runtii reer Puntland waad ogtihiin waxaa bilowday dadku inay isku tashadaan magaalada Puntland maanta soo marnay 3 kiiloomitir iyo 600 oo mitir oo jid ah inay dhistaan bay goosteen kiiloomitirkii ugu horreeyay waa dhiseen kii labaad waa wadaan qofka sidaas oo kale ah cid kasta oo soo marta ama xukuumadooda ahaato ama cid wadada iska maraysa ahaato xataa inay ku darsato diyaar bay u ahaanaysa qofkii wax qabsanaya wax loogu daraa marka waxaan rajaynayaa inaad wax qabsateen kaliya maahan wixii aad qabsateen in la soo bandhigo wax wanaagsan oo la ogaado waxaad qabsateen waxa dhiman si loogu daro arrinta cusbitaalka ilaahay dankiis waxaan rajaynayaa si degdeg ah wax ugu qabanno arrinta ceelashan insha Allah si gaar ah ayaan isha u saari doonaa dhawaan waan rajaynayaa in ceelasha meelaha sidii ugu kala muhiimsan yihiin in wax laga helo sida ay la sheegay hadday dhab noqoto deegaankan in uusan hal ceel oo muddadii Puntland jirtay uusan helin ay jirto arrintaas waa arrin lagu noqdo baahan waxa la sheegay ceel dawladdii hore ka haray
inuu ku yaallo iyo mid wixii dadku qorteen anu ka hadli maayo arrinta hadday saas u dhacdo runtii waxa weeye ceelal aad u fara badan baad puntland laga qoday marka waan rajaynaynaa insha allah waa deegaanada xooluhu ku badan yihiin waa deegaanada runtii dhaqaalaha puntland ku tiirsan yahay dhaqaalaha puntland xooluhu ku tiirsan yahay marka dhulka daaqsinta ah oo xoolaha badan way habboon tahay xilliyada ay wax gaaraan inay biyaha ay helaan baahiyaha kale oo aad soo qorateen waan rajaynaynaa sida aan tabarteennu tahay iyo hortabinteennu wixii aan ka gaarno inaan ka qaban doono waxaan si gaara runtii uga mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada iyo maamulka iyo odayaasha sida wanaagsan oo runtii ay ugu istaageen deegaanka iyo horumarintiisa degmada xarfo deegaanada aan ugu xogogaalsanahay bay ka mid tahay maadaama aan rabno inay noqoto meel xarun u noqoto ciidamada amniga oo noo ah ahmiyadda ugu horreysa xukuumaddan ay rabto waxa weeye dhinaca amniga iyo dhisidda ciidamada marka maadaama ay noo tahay meel muhiim ah oo aan rabno inay ka mid noqoto 4 goobood oo aan ugu talagalnay in ciidamada puntland laguna tababaro xogtoodana lagu ururiyo ay qayb ahaan mid u heshay waxa weeye waa meel aan mar walba la soconno inta badan xogteeda waan rajaynaynaa insha allah inay noqoto meelaha ka mid ah ubucaha amniga puntland lagu dhisayo meel ka mid ah waxaan rajaynayaa idinkuna sida aad u garab istaagteen xukuumaddiina iyo maamulkiina inaad sii wadaan haddee xarfo waxaa lagu soo celceliyey xukuumadaha cid uguma qareento laakiin anaa nii qareebi doono hadda kadib insha allah marka insha allah waa xukuumaddiina ku kalsoonaada waxba inagama maqnaan doonaan xogtiinana waa heli doonaa xogtiina haddaad la baqayshaan baa jirto hadda aada idinkaa iska leh marka waxaa la rabaa xogihiina inaad usoo gudbisaan maamulada xaqiiqada jirta riboorka mar walba inuu yaallo inaan laga caajisin oo la yidhaahdo kuwii hore wax lagama qaban sax ma aha waxaa la rabaa in lagu celceliyo waa dowlad dad aada u fara badan bay mas-uul u tahay deegaano aada u kala badan bay mas-uul u tahay tabarteeduna waa yarta marka kulley hadda dhagaha dowladda idinku kama fogideen ama maamulada ku jiraan waa ka maqnaadeen codkiina waa la maqlaa inta badan marka insha allah waxaan rajaynaynaa intaasna inay noqoto inaan wixii la qaban karo la qabto aad baan iniga mahad celinayaa runtii martiqaadka quruxda badnaa aniga iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday waan iniga cudur daarayaa cagta iyo dadku hadduu inagu badnaa aad baan u badnayn waan dareemi karaa culays badan baan inagu haynay marka insha allah waxaan idin rajaynaynaa idinkana inaad culayskaas uu noqdo mid ilaahay uu nii fududeeyo kana raalli ahaataan haddii culaysku inagu batay waanu ku faraxsanahay runtii caawa inaan la joogno oo inay dhegaysanno oon halka ku wada qaadanno meel runtii waa waxaa marmar xarun ka dhigata halka iska ku shaqaysaa meel degan wey marka insha allah marar badan waan imaan doonaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu